السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتك وحران جنال كمركز السود واضح أدي هذا ومهدسنتهين موقال كان وحن ربعنا ندكول وذاقه امتحان كقاعدة شذا باسبور كمريكان كا ومامول كترام وأتكينه هذا وأتكينه سيدا اللوغو باسو قفكو هدي وسن لقد إنجليش كأقونين دب أي يكون قندونتا محيهين وحيابها كلا إلا سوكر ديي qofku marka muwaadin Mareykan uu noqonayo baasaboorka uu qaadanayo ay tahay in laga helo hadii laga waayana uu qofkaasi baasaboorka loo diidi karo oo aan la siin karinna waan idinla wadaagaya maamulka madaxweyne Trump ayaa waxa ay qorsheynayaan in la adkeeyo imtixaanka qaadashada baasaboorka Mareykanka waxaan ognahay 100 su'aalood ayaa imtixaanka uu yahay qaadashada baasaboorka Mareykanka qofku hadii uu 6 kamida ka jawaabo macnaheedu waxay tahay 60% qofkaasi waa uu baasay waxa jirta sidoo kale su'aalo oral ah oo afka la iska weydiiyo ha iyo maya ah iyo waliba kuwa qoraal ah oo luqadda Ingiriiska oo akhri lagu leeyahay kadibna qor lagu leeyahay markii hore qoraalkaasi waa fududaa oo hal jumlad ama hal sentence ayaa lagu dhihi jiray akhri kadibna qor hadda arintu intaasi way ka badnaan doontaa waraaq dhan ayaa inta lagu dhiibo akhri lagu yiraahdo ayaa waxa lagu dhihi karaa maxaad ka fahantay waraaqdan ninka Trump uu magacaabay madaxa hay'adda u qaabilsan dawladda Mareykanka bixinta green cardka oo deganaanshaha rasmiga ah ee Mareykanka iyo waliba qaadashada baasaboorka ee USCIS-ta ninka la yiraahdo Joseph Edlow ayaa telefishinka Fox News wareysi uu siiyay waxa uu ku faahfaahiyay qaabka ay u doonayaan in ay wax uga bedelaan imtixaanka qaadashada baasaboorka Mareykanka ninkan waxyaabaha la soo kordhinaya waxa kamid ah wax la yiraahdo neighborhood checks waxa uu sheegay neighborhood checks horta waxay tahay marka adigu wad application-ka ayaad xareysay waxa doonaysaa inaad baasaboor qaadato gurigaada dadka dariska kula ah ayaa loo tagayaa saaxiibada dadka aad wada shaqeysaan waa la soo wareysanaya bal hebel ama hebla ka warama soo lama dhihin dariskaada waa ilaala aan lagu dirsan iyaga lagu weydiinaya hadda waxa lagu leeyahay bal qofkan ka warama waa sidee xaaladiisa marka hadii comment fiican laga bixiyo qof fiican ayaa tahay laakiin hadii comment xun laga bixiyo macnaheedu waxay tahay in baasaboorkii Mareykanka lagu diidi karo marka ninkan Joseph Edlow la yiraahdo oo madax ka ah hay'adda USCIS ee bixisa green cardka iyo waliba baasaboorka Mareykanka oo dawladda Mareykanka waxda immigration u qaabilsan waxa uu sheegay in neighborhood checks kan macnaheedu ay tahay in qofka la fiiriyo arrimaha la xiriira qofkan muwaadinka Mareykanka noqonaya bal in la fiiriyo sida uu yahay qofkan waxana uu sheegay in ay soo jirtay arintan ilaa iyo 1950kii in dadka dariskiisa wax laga weydiiyo laakiin 90meedii ayaa la joojiyay yiri xilligii George H.W. Bush oo wadanka madaxweyne ka ahaa ayaa arintaasi la joojiyay marka waxaan ku tiirsaneen ayuu yiri in qofka xogta laga hayo oo dawladda ay ka hayso oo kaliya la fiiriyo qofkan xabsi miyuu soo galay sidoo yahay taxi ma bixiyo waxyaabahaasi in la eego marka hadda wuxuu yiri arintaasina waa ay jiri doontaa oo go'aan ayaa looga gaari jiray daatada dawladdu ay ka hayso laakiin waxa jiri doona sidoo kale social media-hiisa qofkaasi in la fiiriyo social media-hada dhan dib loo ogayaa Facebook WhatsApp Twitter YouTube wax kasto aad leedahay TikTok dib waa la fiirinayaa sidoo kalena waxa uu sheegay in qofkan wuxuu yiri aan dhalashada siinayna waxaan doonaynaa inaan ogaano horta qofkan muxuu yahay boolisku gurigiisa ma tageen wax ribooda may ka qoreen mise kama qorin qofkan howlo Mareykanka qatar ku ah miyuu ku lug leeyahay argagixisay iyo waxyaabahaasi walow markii horeba la baari jiray laakiin hadda wuxuu yiri si qoto dheer ayaan qofkan u eegaynaa waxaan doonaynaa inaan ogaano qofkan aan siinayno dhalashada ama baasaboorka Mareykanka ma yahay qof u qalmo inuu muwaadin Mareykan yahay sidoo kale waxa la weydiiyay imtixaanka waxaan ognahay inuu 100 su'aalood yahay qofku hadii uu 6 ku baaso ay tahay inuu baasayo marka imtixaankii miya wax ka bedeleysaan mase waa adkeynaysaan ayaa sidoo kale la weydiiyay codkiisana waa daawan doontaan markaas wuxuu yiri su'aaluhu aad ayay u fudud yihiin Trump xitaa waxaan ogeyn 2019 markii uu xilka uu ka sii dagayay su'aalaha oo 100 su'aalood 120 inuu ka dhigay laakiin Biden markii uu xilka la wareegay 100kii ayuu ku soo celiyay marka waxa uu sheegay waxaan doonaynaa ayuu yiri in
imtixaanku uu yahay imtixaan u qalma in baasaboorka Mareykanka lagu qaato dib u eegis ayaan ku sameynaynaa su'aalaha naftooda dib ayaan u eegaynaa marka waxa laga yaabaa in su'aalo kale lagu soo kordhiyo su'aalahaasi waxa uu sheegay in wax laga bedeli doono isla markaana ay noqon doonto in qofku uu yahay qof u qalma baasaboorka Mareykanka isla markaana fahmaya xuquuqda ay tahay ay leedahay in qofkan uu noqdo muwaadin Mareykana in luqadda Ingiriiska uu yaqaanana waa muhiim ayuu yiri Trump waxaan ognahay wareegta soo saaray bishii February uu yiri luqadda rasmiga ah ee Mareykanka waa luqadda Ingiriiska xitaa taraagleeda waa qasab looga dhigay in luqadda Ingiriiska ay ku hadli karaan oo ay aqrin karaan marka waxa uu yiri in hal jumlad qofka la yiraahdo akhri isla markaana qor arintaas kuma filna yiri qofkaas inuu muwaadin ku noqdo marka waxa sida muuqata halkii jumlad ee qofka akhri la dhihi jiray ama sentence in la bedeli doono marka waxa uu sheegay qofka inuu fahmayo luqadda Ingiriiska ayaa muhiima isla markaana uu fahmayo muhiimadda ay leedahay iyo macnaha ay leedahay inuu muwaadin Mareykana noqdo arintan arin dastuurka la jaan qaadaysa inay noqoto ayaa sidoo kale aan doonayna bal codkiisii wax yar ila daawada it's not really related to that the neighborhood checks go to the citizenship integrity measures that we're looking at a little known fact is that these neighborhood checks have been on the books since the 50s they just haven't been used since the 90s instead we've relied solely on database checks to determine base eligibility. We're still using database checks, but we're also going to be using social media screening, and we're going to resume these neighborhood checks so that we can get a sense of who people actually are. We want to know whether they are civic-minded. We want to know whether police visit their house but don't write reports. We want to know if they have anti-American activity that we need to consider. We just want to know who people are before they are given the ultimate right of becoming a U.S. citizen here in this country. I think it's a combination of a lot of factors. At the end of the day, what I want to do is make sure that we are fully complying with the statutory requirements for naturalization. So we do want to relook at that test. We want to see if there's a better way to administer that test. The questions do need to change to be a little bit more indicative of whether someone understands the rights and privileges of becoming a U.S. citizen. But also there's an English language component to this. The president has made it clear that English is the national language. Congress has made it clear that English language ability is a part of the naturalization test. Right now, reading a single sentence and writing a single sentence is insufficient to make that determination. And we've got to do better to make sure that we are really in compliance with the executive orders, but also with the congressional mandate that someone understands the language, understands what it means to be a citizen, and ultimately demonstrates an attachment to the Constitution of the United States. waxaa sidoo kale jirta in bishii la soo dhaafay Agosto 15keedii waaxda USCIS ee dowladda Mareykanka u qaabilsan bixinta green cardka iyo waliba baasaboorka ay soo saareen waraaqdan ka kooban 4 bog ama qoraalkan ka kooban 4 bog waxaana qoraalkan uu yahay in qofka dhalashada ama green cardka Mareykanka qaadanaya ama baasaboorka qaadanaya in dib loo eego bal qofkan horta muxuu yahay good moral character aliyara qofkan dabeecadiisu waa sidee dhaqan ahaantiisu waa sidee marka dhowr waxyaabood ayaa lagu qiimeynaya qofkan dhalashada Mareykanka ama baasaboorka qaadanaya waxaana la fiirinayaa waxyaabaha wanaaga ah oo wadanka u soo qabtay ama qoyskiisa u soo qabtay ama isagu uu isku soo qabtay waxyaabahaasi marka maxaa kamid ah ilaa iyo waxaan eegayaa 12 qodob oo looga baahan yahay qofka baasaboorka Mareykanka qaadanaya in laga helo haddii laga waayo waxyaabahaasi qaarkood dhalashada waa loo diidi karaa qodobka koobaad wuxuu yahay qofkan communitygiisa muxuu u qabtaa qofkan volunteer ma sameeyaa mararka qaar si mutadawacnimo dadka ma u caawiyaa meelaha food bankiska ma tagaa oo volunteer ma noqdaa mutadawac ma noqdaa waxyaabahaas la fiirinaya qofkan wadanka Mareykanka muxuu ku soo kordhiyana waa la fiirinaya qofkan ma shaqeynaya ma qof guriga iska joogo caajislo aha muxuu wadanka Mareykanka ku soo kordhiyay waa qodobka koobaad qodobka labaad qofkan familkiisa sidoo uga taxadiraa qofkan ma qof familkiisa dayacaya oo isagu danihiisa iska raacdaya waa la eegaya waajibaadkiisa ayaa la fiirinaya qofkan waajibaadkiisa qoysnimo ma ka soo baxay iyo tiisi waliba iyo xiriirka uu la leeyahay Mareykanka qofku green card uu haysto Soomahan ka hor intuusan citizen noqon haddii marka aad tahay qof aan address lahayn oo dad iskala degan oo guri aan bakraysaninba oo aan shaqayninba isla markaana xitaa wadanka waxba ku soo kordhin qofkaasi baasaboorka Mareykanka
waa loo diidi karaa educationalkiisa la fiirinaya qofkan waxbarashadiisa wax ma bartay intii uu Mareykanka joogo anaga Soomaalideena waxyaabaha ugu daran waxay tahay waan imaanaa shaqaan horey ka galnaa xitaa luqadii Englishka ma barano hadda kadib inta uu Trump joogo kulay ma qaan haddii uu baxana mid Republican miya bedeli doonee haddii aadan luqadda Englishka aadan aqoonin baasaboor Mareykana ma qaadan doontid fadlan fursadaad haysataa weli iskuulla free ah jiro dadka waaweynka wax lagu baro tag 1 sano 6 bilood 2 sano 1 sano iyo bar luqadda Englishka waad ku baran kartaa laakiin haddii aadan luqadda Englishka aqoonin hadda kadib baasaboor Mareykana waad ka sabraysaa inta uu Trump joogo haddii midkan hadda ku xigeenkiisa JD Vance uu soo laabtana siyaasadiisa halkiisa ayuu ka sii wadi doonaa oo la doorto 2028 qodobka afraad muxuu yahay marka qofkan inuu haysto shaqo stable ah dadka Mareykan Soomaalideena waxaan naqaanaa intaan ku boodaynaa shaqaan 2 bilood joogeynaa waan ka tageynaa waa la ceerinaya qofkan shaqadii uga gambinaya qofku shaqo joogta inuu haysto haddii shaqo kasta laga ceeriyo macnaheedu waxay tahay ma shaqaysta inaad tahay qof shaqadu stable inuu haysto haddana si sharci uu ku shaqaysanayo oo sharci darro aadan ku shaqaynaynin waliba historygiisa waa la fiirinaya qofkan shaqooyinkiisa meelaha aad ka shaqayn jirto qofkan sidoo ahaa dadka macayn jiray madab sooc miyuu sameyn jiray achievementskaada waa la fiirinaya shaqo historyga oo shaqadaada waa la fiirinaya shaqooyinkaas soo qabatay guulaha aad gaartayna waa la fiirinaya ma gudba miya ahayd oo nin warehouse hadii la geeyo warehousekiis ka taagan ma ahayd mise qof waxa la dalacsiinayo shaqaysanayo shaqadiisa daacad u ahmiyad ahayd hadii ma gudba ahayd macnaheedu waxay tahay qofkan qof wadanka Mareykanka wax ku soo kordhiyo shaqooyinkiisa qabsanaya maaha waa tahay qodobka shanaad muxuu yahay qodobka shanaad wuxuu yahay qofkan inta uu joogay Mareykanka marka aad green card ka lahayd dadkeena Soomaalida waxaan ognahay green card helay deganaanshaha helay waa safri karaa marka sanadkiiba qofku 2 jeer 3 jeer inuu baxa laga yaabo arintaasi saameyn ayay kugu yeelanaysaa inta ay la eg tahay macnaha waqtiga Mareykanka aad ku sugnayd oo low resident ahayd oo si sharciya wadanka Mareykanka aad u joogtay waa lagu weydiinayaa marka safarkan faraha badan hadii aad green card haysato fadlan iska jooji qofka sidoo kale waxa la fiirinayaa sida uu ugu hoggaansamayay waajibaadkiisa dhinaca canshuuraha qofkan canshuuraha ma xareen jiray anigu dad fara badan aan garanaya 20 sano 30 sano wadanka joogo lacag haysto ama taraagiyado oo xitaa aan xareynin tax arintaasi saameyn ayay sidoo kale kugu yeelanaysaa financial responsibility-gaada waa la fiirinaya lacagta adiga ku soo gashay sidee u qarash garaysay qof fataala ahayd xagee geysay arintii waa xilliga aakhire markii la gaaro sidoo kale waxyaabihii la isku xisaabtami jiro kala hadda la isku xisaabtamaya marka lacagtaada responsibility-gaada ku soo gashay sidoo kale sidee u qarash garaysay waxyaabaha la fiirinaya ayay kamid tahay marka baasaboorka Mareykanka aad qaadanayso waxa sidoo kale kamid ah hadii child support lagu lahaa dadka Mareykanka waan ognahay dumarkeena Soomaalidana waa ay sameeyaan nin baa la guursanaya 2 canug 1 canug 5 canug la kala dhalaya wala kala tagaya wala dacweynaya waxa leeyahay qofkan aan child support laga soo diray marka hadii child support lagu leeyahay macnaheedu waxay tahay inaad iska bixiso arrimahan markii hore qaarkood waa ay jiri jireen kuwana waa ay cusub yihiin marka sidoo kalena arintaasi waa lagaaga baahan yahay iyo waliba family obligation-kaada waajibaadkii familkaada ka saarnaa sidoo kale ma ka soo baxday child support-gaasna hadii lagu leeyahay waa inaad iska bixisaa oo caruurtaadu kulay caruurtaada qaadan lahaa markastaba caruurtaadu waa inaad siisaa sidoo kale waxa kamid ah qofkan compliance-ga probation waxa la yiraahdo qofka xabsi oo galay waa la soo daayay waxa la yiri muddo intaas leeg dambi kale hadii aad gasho macnaheedu waxay tahay in marka la xabsigii dib lagu soo celinayo qofku probation hadii horay oo probation loo siiyay ma uu hoggaansamay ama hadii ay jiraan xaalado kale oo kale kaba soo qaad gabar xaaskaada is dagaasheen restraining order waxa la yiraahdo laga siiyo waxa lagu yiri ilaa inta la kilometer ama mile ma u dhawaan kartid waad jabisay arintaasi ayadana sidoo kale waa lagula xisaabtamaya hadii aad xaalado kale oo maxkamad ay kugu soo rogtay aad arintaasi sidoo kale aad jabisay waxa sidoo kale jirta community testimony inaad marqaati fur daacada aad samaysay kaba soo qaad jury ayaad ka mid noqotay ama arin dhacday oo goobjoog u ahayd maxkamad inta lagaaga yeeray ayaad marqaati fur waliba sax aad samaysay qof baaritaan lagu waday marka uu dawladdu ay baasaboor siiso ayaa sidoo kale wax laga weydiiyay qofkii sidii daacadka ahayd u sheegtay been ma aadan sheegay waxa war qofkan waa sidaas waa fiican yahay ama waa xun yahay markaas oo kale marqaati fur marka sameynayso qofka waa la dhaariyaa qofku waa inuu runta sheegaa marka waxyaabaha la fiirinayo ayay sidoo kale kamid tahay sidoo kale waxa kamid ah qofkan hore dambi u soo kala kamid ah xabsi oo galay drugs ayuu isticmaali jiray wuu ka soo laabtay marka dad kale oo hadda ku jira in uu dadkaasi oo reformation wax la yiraahdo u sameeyo oo la taliyo isla markaana mentor uu noqdo isagu wixii uu soo maray in dadka hadda ku jira uu kala taliyo oo tago oo meelaha ka soo wado oo meelaha la geeyo oo lagu xanaaneeyo dadka darogada looga dhaqo waxyaabahaasna waa looga baahan yahay qofku hadii uu sameeyay isaguna waa wax uu ku mutaysan karo in dhalashada la siiyo
sidoo kale waxa kamid ah inuu si buuxda uu u bixiyo hadii lagu leeyahay wax oo dawladdu lacaga intay sida SSI ama food stamps ama sidoo kalena cash oo lagu siinayay ayaa dawladdu lacag aan lacagtaadi ka badan ay ku siisay marka mararka qaar dawladdu waxay ku leedahay noo soo celi ayaga qaladka sameeyay laakiin waxa qasab hadana inaad u celiso marka arintaasina hadii SSI lacagtaadi ka badan dawladdu ay ku siisay waa inaad dib ugu celisaa sidoo kale waxa jirta qodobka ugu dambeeya 12aad full payment inaad bixiso overdue tax hadii lacag canshuur ah lagugu lahaa iyadana waa inaad si buuxda u bixisaa marka waxyaabahaasi oo idil waxay kamid yihiin waxyaabaha hadda USCIS hay'adda bixisa baasaboorka Mareykanka qofku markuu qaadanayo looga baahan yahay in waxyaabahaasi oo idil laga helo waxa la yiraahdaa good moral character hadii laga waayo macnaheedu waxay tahay baasaboorka Mareykanka waa lagu diidi karaa marka arintaasi muhiimka ayaan rabay inaan idin la wadaago iyo waliba imtixaankii oo hadda kadib dawladda Mareykanku ay qorsheynayso baasaboorka lagu qaadanayay inay adkayso aad iyo aad u mahadsantiin asxaabta intaan mar kale kulmi doono nabadgelyo